hay-adda gargaarka ee Harweyn Foundation ayaa ku dhawaad 200 oo caruur agoon ah oo ka kala yimid xeryaha barakacayaasha ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho oo qaybisay dharka Ciidul Fitriga si ay ula ciidaan caruurta kale ee asaagooda. caruurtan agoonta ayaa waxaa wajiyadooda laga dheehanayay sida ay ugu faraxsan yihiin dharka ciida oo ay soo gaarsiisay hay-adda Harweyn Foundation. qaar ka mid ah waalidiinta ayaa ka mahadceliyay dharka loogu qaybiyay caruurtooda maadaama ay Ciidul Fitriga fooday nagu soo hayso. Harweyn Foundation waan mahad celinaynaa ilmaheena agoonta ahaa ee wax dharaho ciido aysan haysan jirin annagana wax markaas karaamkeena aan gadi karnaa aysan jirin maadaama ay noo ciidsiisay aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa. Harweyn Foundation eedeeda ma hasanto masaakinta oo agoominta eedan farxiyay jazakallahu khair kullu sana wa tayyib insha Allah. maamulaha hay'adda Harweyn Foundation Maxamed Yuusuf Ibrahim ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la caawiyo agoonta. maanta waxaan bixinaynay ilmihii agoonta dharkii ciidahayd 180 ruux ayaa wax nalagu dhibay aan meeshan ku bixinaynay in yar ayaa dhiman gadaal aan ka bixinaynaa doo ilaahay hawshaas oo aanan meeshan aan ku ekeen oo baydhawna sidoo kale xarun aan ku leenahay sidoo kale ilmo agooman ayaa maanta wax lagu siinayaa. Ilyas Yusuf Ibrahim oo ka mid ah howlwadeenada ayaa ka hadlay dharka ciida ay u qaybiyeen agoonta. Harweyn Foundation waxay u taagan tahay inay garab istaagta caruurta agooman iyo dadka isheeg oo waxyaabaha iska bixin karin oo wax loo yaqaan barnaamijyada ah mar waliba waxaan idin garab taaganaa wixii Allah la wixii aad u baahataan. Muuse Cismaan Abtow, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.